wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo kala duwan ku weerareen kolonyo ay la socdeen ciidamada midowga Afrika ee EUSOM gaar ahaan kuwa Uganda. qaraxa koowaad ayaa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waxay kula egteen kolonyo ay la socdeen ciidanka Uganda kuwaas oo marayay deegaanka Buufow iyagoo ku sii jeeday deegaanka Shalembood. war qoraal oo ka soo baxay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayay ku sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen laba ka mid ah ciidamada Uganda halka saddex kalena ay ku dhaawaceen. sidoo kale maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa qaraxa nooca miirada dhulka lagu aasaa waxa ay kula egteen deegaanka lambar 50 Shabeellaha Hoose kolonyo ay la socdeen ciidamada midowga Afrika. xogaa soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa saddex ka mid ah ciidamada midowga Afrika halka laba ka midna ay ku dhaawacmeen. maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa kordhiyay qaraxyada kala duwan ay ku weeraraan ciidamada midowga Afrika kuwaas oo iska kala gooshaya deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana ciidanka midowga Afrika ay deegaanadaas ka sameeyeen hawlgallo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. waxaana marar fara badan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay deegaanadaas ka geysteen qaraxyo iyo sidoo kale miinooyin ay u aasaan ciidamada midowga Afrika gaar ahaan kuwa EUSOM oo ayagu had iyo jeer halkaas ka sameeya hawlgallo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. ciidamada midowga Afrika ilaa haatan wax war kama soo saarin qaraxyadan kala duwan ee maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen deegaanka Buufow iyo sidoo kale lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose.